بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسانه وهديه إلى يوم الدين أما بعد gudoomiyaha golaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa xubnaha golaha wakiilada howlwadeennada golaha wakiilada saxaafadda garsoorka xubnaha hadda diyaarka u taagan iyo dhammaan marti sharafta waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaa kadib waxaan soo koobayaa cv-gayga anigu magacaygu waa cabdulaahi maxamed maxamuud yuusuf marna waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi maxamed guray mirood haddii aan waxa laga yaabaa inta iigu dhow haddaan cabdulaahi maxamed maxamuud yuusuf idhaahdo inaanay garan laakiin cabdulaahi maxamed guray mirood haddaan dhaho waxa weeye waa lay garanayaa cid walba intii taqaana waa ay garanaysa marka taasaan ku magac dheerahay hooyaday waa xaliimo faarax waxaan dhashay 1904 waxaan ku dhashay meel la yidhahdo dawda burur oo ka sarraysa taleex oogadeeda ah ilaaha taleex ka sarreeyaan ku dhashay magaalo kuma dhalan iyo cusbitaal toon gobolka sanaag bay wagaas ka tirsantay Martin Institute waxaan aabe baan ahay 12 caruura leh alxamdulilah rabbil caalamiin dugsiga hoose dhexe sare waxaan kaga baxay gobolka baay degmada baydhabo ayaan kaga baxay dugsiga hoose waxaa la oran jiray Sheekh Uways markii dambe waxa la wareegay daraawiishta ka dhigatay markii dambena waxaan ex college baydhabo 11 January waxaan kaga baxay secondary intaa kadib markaan noo dhamaanay 19 waxaan ka baxay 64 ayaan ka baxay secondary waxaan markaan galay qoladii lagu bilaabay baan ahaa labada sano oo ciidamada ah 84 baan leeyahay 84 weey maxaan 94 miyaan 84 qoladii lagu bilaabay baan ahaa ciidamada labada sano waxaan xeryaha ciidamada ku jiray 2 years waxaan ahaa taliye madfac baan ahaa hoobiye 120 qoriga loo yaqaan waxaan targeting waxaan inta la kaga qaaday ayaan bartii ku hubsaday ku xereeyay bartii loogu tala galay course mathematician baan ahaa arday baan marka waa dabrid baa la sameeyay dagaal ma ahayn laakiin markaas dabrid bay ahayd ma ahayn dagaal dabrid bay waxaan dabadeed galay oo markii aan soo dhamaysanay imtixaan baan ka qaaday 22 kun oo arday baan sanadka kaga baxnay form 4 ka imtixaan baa dib loo ka qaaday waxaan ku guuleystay inaan helo la foole qofka labaad aan noqdo la foole waa noo dhamaatay nasiib wanaag miyaan oran karnaa nasiib daro maalintii aan qalin jabiyay ayaa dawladda burburtay aan dambeeyo anoo hankaygu marka aad u sareeyo ayaa la dawladda Soomaaliya lagu kala dareeray alxamdulilah rabbil caalamiin waxyaalaha la foole marka digrigaas sita la foole waxaan noqday macallin waxaan macallimadii ugu horeysay ka bilaabay degmada Baran oo waxaan bilaabay dugsiga hoose dhexe oo volunteer ah 2004 ayaan waxaan bilaabay markaas volunteer ku bilaabay degmada Baran caruurtii oo markaas banaanka u baxday baanu saas yaalay dabeedna ana maamulo noqday halkaasaan ka bilaabay markaas shaqadii volunteerka ugu horeysay dabadeed haddaan soo koobo waxa dhacday aan sameynay labada shaqo oo igu weyn oo aan ku faani karo waxaan ahaa xubnihii asaasiyaasha Puntland ergey weliba firfircoon oo haddii aan ka sheekeeyo wixii aan qabtay qoraal geli kara aadna u soo jiidan kara ciddii danaynaysa Puntland xubin aad ugu firfircoon oo ergey ah oo wax badan ka soo qabtay baan ahaa ergadii Puntland oo ergeydii asaasiyaashii baan ka mid ahay Puntland waana ku faanaa waana ku faraxsana tan kale oo hawsh kale oo aan qabtay oo aan Puntland ka qabtay waxa weeye macallinimo 8 sanadooda waxaan rajaynayaa ama filayaa hadda ku rajo weynahay ama shaqaale aadan ama xildhibaanaha ahaadeen ragaan macallimiin oo ahaa inay joogaan oo maanta mas'uuliyiin dalka u yihiin wasiiray leeyihiin hay'adaha ka shaqeeyaan xafiis aanan productigeeyay uusan joogin male waa waxaan ku faanayo aad iyo aad qalbiga ugu fiican waxaan qabtay dabadeedna macallinimadii markaan ka tagay waxaan noqday agaasimo guud 2010kii
xilligii doctor cabdiraxmaan maxamed faroole waxaan noqday maxamuud baan leeyahay wuxuu noqday agaasimo guud wasaaradda deegaanka baan noqday agaasimaheeda guud 2 sannadood baan ahaa iyo xogay dabeedna waxa la soo bedelay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha kadib wax kasta ha dhaceene halkaas waan ka tegey translator baan waxaan u noqday meeshii la oran jiray tibak qoladii ahayd guddigii doorashooyinka ku meel gaarka ah ayaan iyagana 6 bilood waxaan u ahaa translator aan u turjumi jiray documentiska English version Somali version markaas wixii documenti halkaa ka soo baxay waxaan hubaa 99% qofka turjumay inuu aniga ahaa English version bay wada ahaayeen kulligeed wax Soomaali u rogay it was only me mainly waxaan wax ka qabtay waxbarasho supervision ama ahaanaado ama wax balhaado waxbarashada ayaan aad iyo aad aan uga shaqeeyay laakiin waxaan maanta ku faraxsanahay inaan Puntland aan asaasiyaasha ka mid ahaa aan u taagnahay maanta in la ansixiyo xubin baarlamaanka Puntland golaha wakiilada aad baan idinka codsanayaa arrintaasna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh